habeynta iyo tayeynta ciidamada Puntland waxay meel sare uga jirtaa siyaasadda amniga ee xukuumadda oo hormuudka u yahay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni si loo helo ciidan taag weyn tirsan oo tayeysan. waxaan insha Allah hortiina ka ballan qaadaynaa inaan ahmiyad gaar ah siin doono ciidanka sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa. iyada oo taas laga duulayo dawladdu waxay bilowday diiwaangelin casri ah oo lagu sameynayo dhammaan talisyada kala duwan ee ciidamada Puntland. markan waxaa ciidamada loo diiwaangelinayaa habka casriga ah ee biometriga, taas oo ujeedada laga leeyahay ay tahay si loola socdo xogta shakhsiga ah ee askari kasta, tirada saxda ah ee ciidamada Puntland, iyo in la xaqiijiyo in askari kasta uu si joogto ah u helo xuquuqdiisa. isbeddelka lagu horumarinayo ciidamada waxaa markii ugu horeysay laga bilaabay xarunta madaxtooyada ee Garowe, wuxuuna qorshuhu yahay in diiwaangelintan casriga ah laga sameeyo dhammaan xarumaha ciidamada. anigoo ka duulaya amarka madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ahmiyadii ballaareed uu siiyay ciidamada kantaroolkooda, qalabeyntooda iyo dhismahoodaba. waxaanu maanta ka bilownay madaxtooyada dowladda Puntland biometric in la mariyo dhammaan ciidanka madaxtooyada dowladda Puntland si ay ugu fududaato in askari walba uu hawshiisa u qabsado sida ugu habboon. sida awgeed maanta dhammaan ciidanka Puntland madaxtooyada waxa ay marayaan biometric laga bilaabo Garowe iyo gobolada kale oo Saaso, Qardho iyo Gaalkacyo. sida awgeed hawshaasi way fulaysaa bidnillaahi kariim. waana mahadsantihiin. hanaankani wuxuu qayb ka yahay siyaasadda guud ee dowladda Puntland ee ku wajahan tayeynta shaqaalaha rayid iyo ciidan labadaba.